DB Wolio BOT sida markii aanu casuunay aanu tartanka ku casuunay isuduwaha iyo gudoomiyaha xidhiidhka ay nooga aqbaleen waa runtooda ay tahay sanadkii labaad ee gobolka Togdheer ay yimaadaan oo ciyaaro saaxiibtinimo oo yimaadaan isdhexgalka labada gobol waa ballan qaadnay inaanu tagno isuduwaha runtii waa ballan qaadnay inaanu gobolka saaxil tagi doono diyaarna waanu ahayn imikana diyaar baanu nahay saaxiibtinimada iyo walaaltinimada ku jirta in marba gobol lagu soo ciyaaro cimilada uu siyar bedeshay ayuunbaa dib noo yar dhigtay laakiin sanad walba waanu jecelnahay gobolka saaxil inaanu ka soo ciyaarno Cabdulla Stadium gobolkii dalxiiska xeebtii Berbere iyo Batalaale aad baanu dadkii reer magaalka reer saaxil waanu ugu xiisnay yani championkii hore sida u soo dhaweeyeen 16kii naadi ee ku ciyaarayay tartankii championka sanadkii 2022 waxaan leeyahay sidoo diyaar baan nahay aad baad ugu mahadsantiin adiga iyo tiimkaaga iyo guddida xiriirkuba sida oo aqbasheen codsigeeyagii anana diyaar baan nahay insha Allah waa idin iman doonaa diyaarna waanu nahay waxaan mar walba gobolka labada gobol mataaniya baa saxaafada aad baan iyagana kaalinta kaga jiraan baa saxaafada kuwa saaxil iyo Togdheerba waan ku amaanay waxaan leeyahay dhalinyaro firfircoon oo goboladiina u shaqeynaya tiine waliba si mutadawacnimo ugu shaqeynaya aad baa ugu mahadsantihiin shaqada aad noo haysaan waxaan marnaba ilaaweynin xildhibaankii labada gobol aynu halkan ku caleema saarnay xildhibaanka labada gobol xildhibaan Cali Cabdi Dheere koobkana uu tartankana u ahaa hindisihiisii iyo fikirkiisii uu keenay wadadiisii u raacnay qof kasta oo mas'uul wado aan jeexana waa laga daydaa waxaanu rajaynaynaa inaanu saaxilna ku soo ciyaari doono xildhibaanka waxaan leeyahay way suura gashay yani hindisahaagii saaxiibaad baad ugu mahadsan tahay waa kuu soo ducaynaynaa insha Allah waanu xiisaynaynaa inaanu isugu nimaadno gobolkaagii waanu ku iman doonaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inagoo nabad qabna adigoo nabad qabay anagoo nabad qabay isu nimaadno mar labaad iyo mar saddexaadba reer saaxil waxaan leeyahay ku mahadsantihiin casuumadda naga aqbasheen aad baa ugu mahadsantihiin isuduwe iyo gudoomiye waanu idin iman doonaa insha Allah taala waana laba goboloo waynu iska xignaa maanta goboladii kale dalka aad baa ugu mahadsantihiin yani anana waa idin iman doonaa insha Allah waa ka jawaabaynaa marka ugu horeysa ugu haboonaato cimilada isbedesho diyaar baanu nahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi